محمد وانت هلك وانت شقيني ودعداسة وما انت وليك الله هيا إلى المدح قيد قارن وحا الله يقول ريبي وحا ويان وهي بصعب واي عاد يدو أنت يكون سنو يا صور عشاميه مسلنا هنولادو qabiilku haba sheegin sinaan ha soo qaadin cadaalad langab ha iska joogo halkiisa haweenna daawarkooda haybtii tira leh ee halka degan umba talinaysa laga yaabaa inay yihiin erayo marka ay dhagahaaga ku soo dhacaan aan micno gaar ah xambaarsanayn laakiin waa kelmado ka soo go'ay qalbiga qof ku dhashay ku barbaaray kuna soo dhex koray bulsho ku eegaysa in dhaliditaan iyo hoos u dhigid ku dheehan yihiin dambiga uu mutaystayna ay tahay oo kaliya haybta uu yahay aqoon ahaan garaad ahaan iyo garasho ahaanba kumanaan uu ku dhaamo ayaa gaaray mansabyo iyo jagooyin aad u sareeya halka isagana ay reebtay oo kaliya haybtiisa iyo qoladiisa inkastoo uusan isagu isdhiibin oo intii karaankiisa ahayd dadaalay haddana waxaa jira kumanaan isagoo kale ah kuwaasoo ka rajo dhigay nolosha lahaa xirfado haddii ay qaban lahaayeen gaajada ka saari lahayd Soomaali oo dhan balse haybtooda iyo xirfadoodaasi noqotay cay iyo raahiyo aan si dhab iyo dhayasi ahba isku dhahno waa Soomaali haddana waan liidnaa waxaan nahay isku isir isku midab isku diin haddana waxaan dhahnaa ma geeyaan gabdhaheena way inaga karti badan yihiin haddana uma ogolaano inay door ku yeeshaan bulshada kooda kartida lehna waan liidnaa ilaa uu ka noqdo mid aan qof dhintay waxba dhaamin muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaan uga hadlaynaa cudurkan foosha xun ee cunsuriyadda iyo sida uu uga dhigo ummadaha kuwa aad u liita asaagoodna aan wax la qabsan karin magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar halkanina waa Wabari Media kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta guurka Soomaalida ayaan ahayn oo kaliya xiriir u dhaxeeya arooska iyo aroosada balse sidoo kale waxa uu yahay xiriir u dhaxeeya qoysas iyo qabiilo bulshada Soomaalida dhexdeeda ayaa isdhexgalka guurka ku xidida balse xaaladda qabiilka gabooyaha ayaa ka bedelan qofkii ka guursadana waxa uu halis ugu jiraa in la dayriyo ugu horeyn inteenan ka hadlin saameynta guracan ee ay ku reebto qabyaaladda iyo cunsuriyadda ummadaha waxa fiican inaan marka hore isweydiino maxay tahay cunsuriyad si maxaa ka dhiga qofka mid ku fikira in qof ay isku mid yihiin oo laga yaabo inuuba ka kartiyo aqoon badan yahay inuu ku eego indhaliiditaan iyo hoos u dhigid ay ku dheehan yihiin cunsuriyaddu waa fahan khaldan kaasi oo ku beerma caqliga qofka cunsuriga ah kana dhiga inuu u arko dad gaar ah inay cirqi ahaan iyo hayb ahaanba ka hayb hooseeyaan dabcan fikirkan ma ahan fikir qofka si kadis ah ugu dhasha balse wuxuu ka dhaxlaa bulshada iyo deegaanka uu ku nool yahay waxaana dhici karta in qofkan cunsuriga ah uusan bagaranayn sababta uu u liidayo ama u cunsuriyadeynayo dadkan tusaale ahaan haddii aan maanta qof ka mid ah kumanaanka Soomaalida ah ee inagu dhex nool ee ay xididada ka gashay cunsuriyaddu weydiino su'aal ah maxay dadkan aad faquuqaysid galabsadeen ama aad ku kala duwan tihiin waxa hubaal ah inuusan jawaabba u helin su'aashaada dadkan la cunsuriyadeynayo badanaa waxay la kulmaan liiditaan hoos u dhigid ka faramaroojin xuquuqdooda iyo dulmi aan dhammaad lahayn way inala degan yihiin haddana waxbayna lama qaybsadaan waxaan nahay isku xaafado haddana dabka ma kala qaadanno dhalinyaradeenu marka uu midkan kale rabo inuu oraah cay ah ku dhaho wuxuu adeegsadaa ficil ka turjumaya cunsuriyad inkastoo laga yaabo inaysan cunsuriyad inaga ahayn haddana waxaan ka dhigaynay mid caado inoo ah inaan adeegsanno oraahyo sida tumaal oo kale ah marka aan qof liidayno ama aan yasayno tumaalna ma ahan sifo uu yeelan karo reer gaar ah balse waa xirfad maanta dalalka ugu waaweyn adduunka ay ku hormareen qofka tumaalka ah ee jooga maanta dalalka Yurub wuxuu ku shaqeeyaa mushaar ka badan kan uu ku shaqeeyo macalinka iyo dhakhtarkuba mana ahan waxaan maskaxdeeda ka keensaday balse waa waaqaca dhabta ah ee ka jira dalalkaasi tusaale ahaan shirkadaha soo saara gawaadhida sida Mercedes iyo BMW ma ahan shirkado ay ka howlgalaan dhakhaatiir ama injineero balse waa shirkado ku tiirsan tumaalada iyo dadka biraha sameeya waxayna shirkadahan dalal sida Jarmalka lagu tiriyo dalalka ugu dhaqaalaha badan Yurub ay u yihiin lafdhabarta dhaqaale ee ay ku tashato dawladdu sidoo kale waxa soo weheliya kumanaan tusaale oo ku tusaya haddii aan nahay Soomaali in aan nahay dad hawshoodu kaliya ay tahay inay aasaan kuwooda xirfadda leh haddana hadhow la soo shirtagaan waxaan nahay shaqo la'aan ama waxaan nahay dad sabool ah oo aan waxba haysan cunsuriyaddu ma ahan wax ku cusub aadamaha balse qarni walba waxay ahayd caadada kaliya ee soo jireenka ahayd ee ay ka midaysnaayeen aadamuhu laga soo bilaabo xilligii Fircawn oo reer bani Israa'iil aynu dhammaantiin wada ogsoonnahay sidii uu u adoonsan jiray una leen jiray raggooda uguna shaqaysan jiray dumarkooda sidoo kale Ruumaaniyiinta iyo xitaa Carabta oo nabiga ka hor naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee
aan ogeyn heerka ay ka gaarsiisnayd cunsuriyadda iyo faquuqu. heer waxaa dhici jirtay iska daa inay faquuqaan dad iyo qabaa'il kale ay aasi jireen dumarkooda. xilligaasi carab ma ahayn ummad adduunka wax saamayn ah ku leh. waxay ahaayeen tiro qabaa'il ah oo degta saxaraha jasiiradda carabeed. qabaa'il si joogto ah ku hardami jiray ayna dhex mari jireen dagaallo lagu hoobtay. dagaaladaasi ayaa ku bilaabmi jiray qabyaalad iyo waxyaabo aan micno lahayn, waxayna socon jireen 10 sano. tusaale ahaan dagaalkii daaxis iyo qabra wuxuu soconayay 40 sano oo xiriir ah. 40kaasi sano waxaa ku dadiya hanti beelay 2 qabiil oo ilmaadeer ahaa. sababta ay 40kaasi sano ku dagaalamayeenna waxay ahayd tartan dhex maray 2 faras oo ay kala lahaayeen 2 nin oo ka mid ah labadan qabiil. fardahani oo la kala dhihi jiray daaxis iyo qabra ayaa waxay ku sharatameen 2 nin ee kala lahaa in kii guulaystay la siinayo 100 neef oo geel ah. way tartameen, kadibna waxaa guulaystay faraskii la oran jiray qabra, laakiin sida uu ku guulaystay waxay ahayd qaab khiyaano ah. markii uu ogaaday ninkii kale ee ku tartamayay faraskii daaxis oo la oran jiray qays al-cabasi wuu xanaaqay, kadibna wuxuu dilay ninkii ay naadirka ahaayeen ee lahaa faraskii guulaystay. waxaana sidaasi ku bilaabmay dagaal soconayay 40 sano oo xiriir ah. xilligan ay qabaa'ilka carbeed ahaayeen kuwo qabyaaladda iyo faquuqa ka dhigtay caqiido iyo dhaqan, ma jirin qof aaminayay inay dhici karto in la arko carab oo midowda hal maamulna yeelata. laakiin markii uu yimid nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu la dagaalamayay ayay ka mid ahayd qabyaaladda iyo cunsuriyaddu. dadkii ugu horeeyey ee raacay nebi maxamed rumeeyeyna diinta islaamka waxay u badnaayeen dadkii addoommada ahaa iyo dadkii la yasi jiray. wuxuuna nebigu ahaa mid ku dhex jira asxaabtiisa aanna u soo kala dhowaysan isir iyo midabtoona. markii uu yimid magaalada madiina wuxuu walaaleeyey ansaartii lagu yimid madiina iyo asxaabtii la soo hijrootay. walaalayntan iyo midayntan dhammaan qabaa'ilka iyo dadkii muslimiinta ahayd xilligaasi wuxuu ka soo saaray ummaddii carbeed ee horay ku suntanayd kala tafaraaruqa iyo inaysan lahayn awood xooggan oo ay isaga dhicin karaan faris iyo ruum oo ahaa xilligaasi labadii awoodood ee adduunka ku hardamayey. midnimadaasi waxay ka dhigtay carab iyo dadkii islaamka ahaaba kuwo dhidibada u taaga dowladdii ugu xoogga badnayd abid ee la arko. waxay ka baxeen jasiiraddii carbeed waxayna ku faafeen dhammaan daafaha adduunka oo idil, heer ay gaareen qasriyadii ruum iyo faris. qabiil ma ahan wax cusub. tan iyo maalintii la uumay nebi aadam iyo xawana dadku uu ku kala suntanaa qabaa'il. laakiin marka aad inadeerka iyo walaalka u aragtid inay dadka kale ka isir wanaagsan yihiin kana sareeyaan, marka aad aamintid in reerkaagu uu yahay kan keliya ee xaqa u leh inuu wax hogaamiyo, taladiisana la raaco, marka aad maanka ku qabatid inaysan jirin cudud ahaan iyo tira ahaanba dad ka awood badan, marka aad reeraha qaar ku eegtid indho liiditaan iyo cunsuriyadeed, waxaa hubaala inaad helaysid dal sida Soomaaliya oo kale ah, dal Ilaahay u hibeeyey xeebta ugu dheer Afrika, haddana dadkeedii biyo la'aan u dhimanayaan. dal eebbe gacanta u geliyey dalka ugu khayraadka badan Afrika, dal aysan qoraxdu 12 bilood sanadkii ka dul dhaqaaqin, haddana dalal shisheeye quud iyo waxay cunaan weydiisanaya, dad aan aqoon nidaam dowladeed iyo kala dambayn, haddana u qaybsan 10 dowladood oo isbarbar yaacaysa, dad eebbe ku manaystay jasiirado iyo goobo aad u bilic wanaagsan. haddii ay juhdi yar gelin lahaayeenna adduunkoo dhammi u soo tartami lahaa imaatinka dalkooda oo ka doorbiday inay u tahriibaan una qaxaan dhulal dadkii lahaa ay dhisteen waqtina gashteen. waa hubaal in haddii aan caqli iyo garaad leennahay aynu garowsannay waxa ay tahay qabyaalad iyo faquuq. waana hubaal in 30 sano kadib aynan maanta u baahnayn inaan isku sheegno dhibta foosha xun ee ku gadaaman qabyaaladda iyo cunsuriyadda, marka laga reebo dadka weli caqligooda iyo fikirkoodu xanuunsan yahay ee ay u tahay qabyaaladdu dhiig ku soconaya xididadooda. 899 sabana gaadhaya sumba iyo faqiir baan ahaa laga sarreeyaa, inta samada loo guurayo sahana dhaafaaye, sakalaha qabiilkiiyo dulmaan seeta ku ahaay, siyaasada khaldaan iyo sagsaag wasadii qoran, hadba xulafa saaxiibtamaan seerow kulaha, hayb sooca nala baday rabbow waad la socotaaye, sumcaddii maxaa iga dilay laygu sababay, allahayow maxaa loo sannifay isirka Soomaali, abtirsiimo sugan bay wataan aadan saraciye, nuux iyo safkii nebiyaday dhinaca saaraan, sinji aan ku faaniyo rabbow sumada aan sheegto, sawrac laygu qaatiyo halkan siirka ku arooro maxaa layga siibee rabbow seera igu